maanta xaga dheer bur iyo biyo loo kala bixi walaa waxa isdagaaleen mukaambada iyo Soomaalida isdagaaleen mukaambada hal bay cuneen oo Soomaali aan kadib ay kana laba adoon laga cunay Soomaalida dhiigeeleeda wallahi bilaa dhaamus iyo maaji والله مقالة حق دير ما تريبا كجرا عنق يرا للدلي أو صومالي وميرد الشي ميرد نوال لاي مقالة ما أنت بوستاجدنا عاسي وتالا ولا محرق وانكرا إلهي مقالة وعلى كرا قحي بوستاجد وتاس عيالك سكول كلنا عرهيان وانكحهم المعروف جولي في حاجة دير سادر ميسين عبسي والله مقالة عبسي على قدر ما بوستاجد وينا عمر وطاس عدلها سالة تاغية المعروف جولي maanta xaga dheer bur iyo biyo loo kala bixi walaa waxa isdagaaleen mukaambada iyo Soomaalida isdagaaleen mukaambada hal bay cuneen oo Soomaali aan kadib ay kana laba adoon laga cunay Soomaalida dhiigeeleeda wallahi bilaa dhaamus iyo maaji dagaal culus oo ka dhacay xeryaha qaxootiga ee xagar dheer ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen 4 qof waxaa la sheegay in qabiilka kaambada in ay dagaal ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ayna halkaas ku dileen wiil Soomaaliyeed kadib Soomaalida ayaa dagaal iyadana qaaday waxayna dileen 2 kaambo ay dileen kaambada waxaan ognahay waa mid kamid ah qabiilada dalka Kenya waxayna xuduud aad u dheer leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Waqooyi Bari xeryaha qaxootiga ee xagar dheer shalay ilaa iyo maanta waxaa ka socday dagaalo waxaa ka socday mudaharaadyo sidoo kale waxaa la maqlayay rasaas toos ah oo socotay askarta mislaamaha ammaanka halkaas ku sugnaa ayaa waxay markiiba bilaabeen in ay kali eriyaan boqolaal shacab Soomaaliyeed kuwaas oo doonayay in ay gabi ahaanba ka ciribtiraan kaambada xeryaha qaxootiga ee xagar dheer waxaan ognahay kaambada aad iyo aad ay ugu badan yihiin gobolka Waqooyi Bari waxayna inta badan ka shaqeystaan ismaamulka Gaarisa Wajeer iyo sidoo kale Mandera sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan uu khilaaf ka kala dhaxeeyay qabiilka kaambada iyo sidoo kale Soomaalida ayaa geelooda waxay geeyeen dhulka kaambada ayaa iyagoo wato laamaha ammaanka sidoo kale siyaasiyiintooda waxay dagaal ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed waxayna laayeen boqolaal neef geela waxay sidoo kale ay soo fiijiyeen Soomaalidii ka ganacsanayay mise ku noolaa dhulkooda waxaan ognahay in xildhibaanka Kitui East ninka la yiraahdo Nimrod Bay uu wacad ku maray in uu Soomaalida ka cirib tiri doono mise uu ka saari doono meel kasto ay kaga sugan yihiin ismaamulka Kitui marka in ay hadda wiil Soomaaliyeed ay ku dilaan xeryaha qaxootiga ee xagar dheer waxay aad iyo aad ugu noqotay wax la yaab ah shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka gobolka Waqooyi Bari maanta ilaa shalay dagaal culus ayaa ka socday gudaha xarada xagar dheer waxaana la maqlayay Soomaali fara badan oo doonayay in ay laayaan mise ay u argudaan wiilkii Soomaaliyeed oo lagu dilay halkaasi caruurta iskuulka dhigata haweenka iyo sidoo kale ciyaalka ayaa markiiba bilaabay mudaharaadyo askarta mislaamaha ammaanka ayaa kala erisay mise kala burisay shacabkii halkaas ku mudaharaadayay iyagoo doonayay in ay dib u soo celiyaan nabadgelyadii ay ku jirtay xagar dheer marka waxaa ka soo kordha dagaalkaasi iyo xaalka sidoo noqon doono halkan ayaad kala socon doontaan insha Allah
ha hilmaamin inaad channelka subscribe saarto, sidoo kale muuqaalkanna aad asxaabtaada la sii wadaagto. Halkan inta badan waxaan kusoo gudbinaa wararka dalka Kenya, arrimaha Soomaalida ku nool dalka Kenya, iyo sidoo kale siyaasadda ayaan halkan kusoo gudbinaa. Muuqaalo iyo warbixino cajiib ah ayaan halkan soo dhignaa. Marka ha hilmaamin inaad channelka subscribe saarto, ha hilmaamin inaad channelkan asxaabtaada la wadaagto, hana hilmaamin mar kale waan ku xasuusinaynaa inaad subscribe saarto. Intaasi ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan kooban. Waxaan filayaa inaad channelka subscribe saartay, muuqaalkanna aad like ta saartay.